السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء سومالي موتيفيشن بودكاست. موضوع عمان كهذينا وبروكاستينيشن موضوع عنا مسترن واحد كده يسن كرتا بودكاست هدي كلنا ميلها هكذا كعم مقدم أيد كده يسن كرتا بروكاستينيشن وموضوع رنتي أهل كابن أو فضود أو قف كستا فهمية وقف كينو وحقرشتي awoodeedu leeyahay aqoonteedu leeyahay wixii uu sameyn karo laakiin aanu sameynin oo qorshii 3 sano ka hor uu sameystay ee uu doonayay inuu sameeyo halkii uu fadhiyo aan waxba ka qabanin maalin kastana uu doonayay inuu wax ka qabto maxaa ka hortaagan maxaa keena qofka leysnimo ku keenta mise waxa ku keenay inaanu hawshii qaban karin labada midna kuma keento waxa keenta qorshe xumada qofku inuu wax qorsheeyo oo uu dadneeyo waxa xasan qabanaya way adag tahay inuu wada qabto hawshii uu doonayay inuu qabto laakiin hadii uu hawsha u sameeyo priority aba sidii u kala muhiimsan tahay uu qofku u qoro wax fara badan ay ka caawinaysaa tusaalahaan Soomaalida waxa ku maamaada waxa indha arkaan biilka gooyaan hadii qorshahaaga aanad karantarka telefoonka aanad ku calaamadin amba laakiin aad soo qaado oo warqad ku qorto oo aad warqada qorsheyso oo la arki karo oo la taaban karo oo gidaarka ku dhijiso oo suuliga ku dhijiso oo albaabka ku dhijiso wax laga yaabaa inaad aragto xasuusato aad qabato waxyaabaha qofka ay ku keento waxa kamid ah qofka kartidiisa hawlqabada iyo qiimihiisa ay hoos u dhigtaa tusaale ahaan haddii qofku shaqaynayo oo dad la shaqaynayo dabeetana shaqadii ay kugu ururtay maanta shir la gelayo oo mataqaanay wax kastaba deadline-kiisa aad eriyanayso waxay keenaysaa shaqadii aad awoodisay ee aad qaban karaysay inaad qabanin laakiin aad qabato shaqo ka gaarsiina oo dabeetana dadka aad la hortimaado waxaad qaban karaysay intaas 100 kun oo jeer wax ka fiican wax laga yaabaa in mataqaana ay magacaaga sumcadaada shaqada ay mataqaana ay saameyso sidoo kale waxa ay qiimo rid ku keenta waqtiga markii maanta ku dhaaftay bil ku dhaaftay shalay ku dhaaftay week ku dhaaftay bil ku dhaafay waqtigu qofka agtiisa qiimo laan ayuu ka noqdaa waqti kasto haystana waxba ma qaban karo hadii uu marka horeba ku dhaco mataqaana meeshaas wahsiga keenaysa qorshihii hore ka lumay qorshaha inaad samaysataa waxay u baahan tahay dhiiranaan iyo inaad niyad u hayso taa laftigeedu way kaa tagaysaa sababtoo ah waxaad noqonaysaa qof stress ka buuxo oo wixii ku tuulmeyn macna waa wax aad u fudud inaad mataqaana ay wahsigeena galo deetana shaqo ku dhiibto sidee lagu xalin karaa sida kaliya lagu xalin karaa waxa weeyaan inuu qofku sameeyo qorshe muuqda oo cad oo la arki karo oo mataqaana listaysan amba uu isticmaalo waxa loo yaqaan journalinka oo ah inuu wax kasta qoro oo journal gareeyo journalinka iyo time planningka waxaan qayb kamid ah noqon doonaan episode-ka insha Allah isbuuca dambe soo socda waxaanan ku soo bandhigi doonaa anigu journalinka journaladan isticmaalo sida yihiin iyo nooca ay yihiin iyo sababaha isticmaalo sidoo kale waxaan soo raacin doonaa insha Allah linkiyo aad ka soo dejisan kartaan aba ka soo download garaysan kartaan journalo bilaash ah oo runtii aad u fiican waxaan wadaagi doonaa fikirkiina sidee ayaad u aragtaan journalinka adigu ma sameysaa sideedaba wahsiga maxaad ku daweysaa marka aad shaqooyinku suga gaaraan ee wixii aad qabanaysay aanad qabanin sidee baad yeeshaa arinta cusub hadda ku cusub bulshadeena amba aynu dhex fadhina waxa weeyaan uga sii darasa wahsiga iyo procrastinationka labadaba uga darasa waa telefoonkiina wuxuu noqday TV showyadii adduunka oo dhan iyo movieski adduunka oo dhan iyo raadiyooyadii adduunyada ka baxayay iyo podcastka adduunka baxayay social media ayaad ku sidataa gacantaada dabeetana adigu bal ka waran hadaad meel intaad fadhiisato aadba markii aad shaqo qaban lahayd aad firaaqo noqoto 2 saacadood amba saacad aad gasho Facebook dabeetana aad Instagram-ka eegto dabeetana aad Snapchat-ka eegto kadibna aad TikTok-ka eegto dabeetana kan kale cusub la yiri waxa la korayaa stage-ka aad isagana ku xigsiiso yacni ugu yaraan hadda 20 minuut ku jirto midkiiba halkaas waa 3 saacadood maalin kasta aad disho waqti firaaqo inta ka badan adduunka qof haysta ma jiro saadirteed khatartu ugu weyn anagu waxaan arkaa in nagu hayo telefoonka aniga wiigu haya shaqsiyan waxaan aaminsanay qof kasto ay daawanayaan bay dhageysanaya heer gaarsiisan tahay inuu si uun saameyn ugu hayo
marka haddii ay doonayno waxaan rabno gaarno oo riyooyinkeenu aanay ahaanin qorshayaal bugaagta iskaga qoran telefoonku waa meesha ugu horeysa iyo social mediahu ay tahay inaan mataqaanaa iska ilaalino. telefoonadu waxay leeyihiin in mataqaanaa aad ku xiri karto intee legba social media isticmaalaysa amba intee legba telefoonku hadlaysa amba telefoonkaaga intee uu active ahaanaya oo telefoonkaaga marka aad activate gareysay aad geliso uu iska ka xirayo amba uu koranayo maanta intaas isticmaashay amba screen timekii mar walba aad active ka dhigto kula wadaagayo waxa laga yaabaa inay ku yara waabisa laga yaabaa waad mataqaanaa aad iska dayso. arintani waxay dhibaato aad u fara badan ku haysaa inta badan waa la kulma ardayda waxay soranayaan waqti fara badan baa haysataa sabti iyo xad baa haysataa gaar ahaan waqtiyada fasaxa la galo gaar ahaan imtixaanka marka la gelayo waxaad arkaysaa ardaygii oo ogtahay inuu awoodu leeyahay waxaan oo dhan oo fasalkan ugu fiican yahay laakiin haddana imtixaankii ku guuldareysta casharadii ku guuldareysta qorshaha hore hadduu ka xumaado oo waqtiga aan u tirsanayn oo meel kasta alarm ugu xidhnayn uu isdhiganaya xusanaya waqti fara badan baa hadhay isku soo duwa waqtigaaga hadduu lumoon way adigana ku dhamaata qorshaha aad samaysata haddaad raacin waxba kuma suurtagelayaan. fikradaha adduunka ugu wanaagsan haddii aad xambaarsan tahay oo tahay qofka adduunka ugu caqliga badan ugu cilmiga badan aanad qorshaha ka dhamayn meel lama gaadhisid. waxaa la yidhaahdaa talentka waxaa bitgareeya hardworkinka amba qofku inuu u dhashay hibo ilaahay siiyey aqoon u xambaarsan yahay oo maskaxdiisu weyn tahay waxaa ka adag inuu qofka kala dadaalay marka waxaan rajeynaya insha allah qorshayaasheena madaxeena ku jira mataqaana procrastinationku inaga hortaagan yahay insha allah inay inoo fulaan oo aan samaysano qofkuna uu discipline inuu samaysta ayaa wanaagsan. intaasaan kusoo gabagabeynayaa mawduuceena maanta runtii waa mawduuc aada u gaaban mataqaana aadna u fudud oo aan ahayn mataqaana wax cilmiya aqoon laga soo gudbinaya amba wax aan research aan sameeyay amba mataqaana aan aqoon fara badan lan kusoo gudbinay laakiin waxa weeyaan wax xasuusin idinka iyo aniga ma naftayna aan u dirayo waana caqabad aada u weyn marka aad u fiirsato intee waxbaa doonaysa inaad qabato procrastination darteed u qaban weyday imise meelood baad rabtay inaad mataqaana aad ka muuqato amba aad wax samaysa amba aad tallaabo qaado oo aad procrastination darteed u joojisay. waxaan aaminsanahay boqolaan haddii aad mataqaana aad haysato amba aad isticmaasho siyaasad kaga takhalusto procrastinationka nala wadaag aad baan u xiisaneynaa fikirkiina maqlo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi